hooseeya qiimaha badan ee lagu soo dhaweeyey garoonka runtii waxaan rabaa inaan halka ku xuso اللهم صل على سيدنا محمد محضر ربي واسكاله waxaan salaamayaa dhammaan mas'uuliyiinta dawladda maanta runtii waxaa farxad weyn oo ah in halkan hal mar isugu yimaadaan shirkii booliska hawada safar dheer ka yimid xildhibaan xaamid oo shaqo kusoo iyo walaalaheen turkiga oo shaqo wada socda iyo rag kale oo iyaguna shaqadaas qayb ka ah turkiga iyo xildhibaanka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay guud ahaan walaalayaal soo dhawaada magaaladiina koowaad caasimadda ganacsiga puntland boosaaso waa magaalo nabad ah oo magaalo ay ka socdaaneen horumaro kala duwan dhinacyo badan leh insha allah horumarkaad wadaana kuwaas ayuu ka qayb noqon doonaa mana ilaawi doono cid kasta oo horumar lagu soo kordhisa mujtamaca kale dadkan iyo dalkan u keenta maxaa yeele baahi weyn baa loo qabaa waxyaala wax ka taraya bulshada horumarkeeda sida garoomo casriya iyo wixii la mida sidaa daraaddeed waxaan u ballan qaadaynaa dawladii shacabba inaan si dhamaystiran u garab istaagno barnaamijyada iyo horumaradaas rajaynayno inaad uga wadaaneen mar labaad iyo mar saddexaadba kusoo dhawaada boosaaso magaaladii ganacsiga puntland waydinaan marti ku ahayn xildhibaankuna magaaladii laga doorta tahay idinkuna magaaladiinii labaad ay tahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa si kaliya laab leh aad iyo aad baad noo mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu agaasimaha guud iyo madaxda garoonka iyo dhammaan dadka reer hooseeya qiimaha badan ee lagu soo dhaweeyey garoonka runtii waxaan rabaa inaan halka ku xuso barnaamijkan safarkan uu hogaaminayo guddoomiyaha cabdi maxamed cabdixaaq oo ah guddoomiyaha minicabka east africa oo xildhibaan xaamud oo runtii hawl badan iyo shaqo badan xildhibaanada puntland aad wada taqaaniin runtii barnaamijka ay u socdaan barnaamijkan waa barnaamij garoomo waaweyn oo casriya oo puntland lagu soo kordhinayo oo halkii garoonba 7,000 oo qof qaado oo runtii wax badan ka tari doona isbeddelka dalka ama dhalinyarada ka faa'iidaysato ama mujtamaca laftigooda waayo sportka waxa weeye waa art weeye marka waan soo dhaweynaynaa waxaan weli ka codsanaynaa shacabka reer puntland in la soo dhaweeyo weliba magaalooyinka laga fulinayo inay iska xilsaaraan inay dhulkii ku caawiyaan inay la shaqeeyaan inay amnigooda kala shaqeeyaan waa dad muslimiin oo walaaladeena oo afriga kuma qabaan weliba turki waa waddan aynu walaalnahay oo maaragtay aan aad u soo dhaweynayno weliba haddaan maamulka puntland nahay inay dalka shaqo badan ka qabtaan runtii diyaarna ay u yihiin runtii inta ka soo shaqaysay weli aan ogahay xildhibaanku xitaa 2 jeer iyo cabdixaaq inay isaga daba noqdeen iyo walaalaha kale la socdayba waa arrintaas aad baan uga mahadcelinayaa waana soo dhaweynaa runtii oo maaragtay waa fursad bayna ahayd maaragtay in safarkan aanu ku wada nimaadno marka hawlwey laga soo shaqeeyey weeye runtiina gudoomiye cabdixaaq waxaan leenahay walaal kusoo dhawow gudaawa gurigaagii taariikhduna way xusu doontaa hawsha tan aad ka soo shaqaysay
كل قرامة من مقع قلوب حيو إن شاء الله ما رضي سيدونا ويدي لا شقي دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما هاي وصل ناطي إلهي سلطان كان ماشى أنه وحنا هاي وفدي قلت له أنا سفر كمغنى أريجا وسير كدبلومات كدبلومات صاحبكي أنه وحنا الصحيح والله والله وسير هذا كأنا سبحان الله شعبك وحنا اسكت بين كلنا مبارك هو رب العالمين إسرائيل الله إلهي بعد الكيد الرسول كل كتان ربنا دم بدل ما تملك من الطلياني كفرنسيس كإمارات كتركيا الكويت ودم كله أنت بولا ونكسن أنا خلاص وقرناي هاد بي معناته وحنا لقب تديار لويا هاي وحنا جينا وصلنا كده وحبلا وأذكر فرحان بصوني دونا باكستان شقوي وقتي وباهيني ذكر المتلان وقيمها بدن ونبض الجعل حنا جينا ذكر ولاله من دونا ولا شقين دونا إني أبي سودويان إني نبضي هرمك كفايدة سنة نبضي أنا أسوقنا دولتنا لا شقيه يعيد كستوي نوتي هذا ده هالقول إنه بسوق رديني سوق إلا سودوية كمفرد له سودوية dad aad u qiimo badan oo nabadda jecel oo shacabka reer Puntland iyo Soomaali guud ahaan waxa uu rajaynayaa inay ka tooda gartaan iyo wanaag annagana mas'uuliyad baan la saaran golayaasha dawladda cusub baan nahay waxaanu garanay war hadda khayraadka dhulka gudihiisa ku jira haddaan la soo saaray banaanka wax badan ma yaalin laakiin waxaan haysanona inaan suuq raadino inaynu raadsano ciidan la kaashano xag ganacsi iyo xag taageero labadaba horumarka waddanka oo ganacsigu ugu horeeyo iyo dhismaha muhiimka sida aeroboorada dekedaha jidadka telecommunicationka energy-ga waxyaalaha bulshada ku horumarto iyo aqoonta oo number 1 jaamacadaha asbitaalada oo iyaguna bulshada muhiim u ah in laga horumariyo waxaasoo dhan waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda dowladda cusub inay horumar badan ka samayso laakiin waxaa loo baahan yahay qaybta bulshada oo muhiim ah oo soo dhaweyn walaalnimo gacmo furan هذه أدبر وفرح سماها مجال البوساسو. Biz Somali'ye gelirken, Kalan'a gelirken yabancı bir ülkeye gelmiyoruz. Burası bizim evimiz, yer home. Dolayısıyla insanlardan da orada yaşayan insanlardan da bu sıcaklığı görüyoruz. Buraya sosyal bir proje için geldik. Özellikle Somali'deki gençlerin, gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için WMF, Dünya Milli Futbol Federasyonu bir organizasyonuyla geldik. intii waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo ku hadlayo magaca xiriirka Soomaaliyeed ee mini footballka isla markaana ah xubin jirta Afrika iyo World Mini Football sida wanaagsan loogu soo dhaweeyay Boosaaso aniga iyo wafdiga Turkiga ah walaalaheena ah oo doonayo inay Puntland ka dhisaan garoomo caalami ah horeyna ay u imaadeen Soomaaliya shirkaddan waa shirkad ugu horeysay oo garoomo heer caalami ah ka dhista Soomaaliya oo dhan maantii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan mas'uuliyiinta reer Puntland intii ka shaqaysay in mashruuca kan uu hirgalo intii la soo dhaweysay intii uu dhabar adeegtay oo ka mid yahay xildhibaan Xaam oo ilaa iyo Ankara iyo Istanbul nala tegay waxaan u nimid in aan isboortiga la horumariyo jiilalka yaryar oo soo koraya garoomo ay helaan international alxamdulilah rabbil caalamiin. DMI